الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha ururka gudoomiyaha ururka sharci maal garyaqaan mukhtaar yuusuf maxamed gudoomiye ku-xigeenka cabdiraxmaan suleymaan cali xoghayeena cusubeen maanta halkan xalka kula kala wareegano maxamed cumar cabdi waxa ururku waxa la aasaasay 2016 bishii 7 ururku wuxuu jiraa muddo 2 sano iyo 2 bilood iyo 7 maalmood maanta waxa ka soo wareegay waxaan qabsanay doorasho 2017 bishii 9 waa berito loo kale maanta sanad buuxa ka soo wareegay waxaan ku faraxsanahay inaan muddo sanada aan xoghayo u soo ahaa ururka sharci maal xubnihii ila soo shaqeeyayna waan u mahadcelinaya dhammaantood ee 6 qaybood ka koobnaa iyo iminka 3 waaxood ee loo kala saarayba ururku wax badan buu soo qabtay dhexdiisu wax ka qabsaday intii aan xilka soo haynay anagoo kala soo wareegnay Suuda iyo groupka ka horeeyay groupka Cabdicasiis iyo gudoomiye u ahaa wax badan man ururka inta uu soo qabtay shaqooyin badan baa imika yaala oo aan hore u ballan qaadnay la qabto oo bableenka ku jiro wali imika la wada mudaxalaadkaygii muu dhamaan sanad baa hartanaa tiimkan la soo shaqeynay waxaan rajaynayaa waxyaabaha aan ballan qaadno dhan intii aan ololaha ugu jirnay in la dhameeyo waxyaabaha kala qabsoominta ururka xogaya ka soo haa ee aan bulshada u qabanay waxaan ururnay daatooyin
kuwaasoo ka mid ahaa dad tacdiyo loo geystay carruur dhalinyaro oo la xidhay oo la geeyey meelo fogfog annagoo maxkamadda uga tagnay oo ku nidhi iyo qaladaadaadkii jiraynu gudbinay waxyaabaha intaa aan soo haynay qaladaadkii dhacayna aan soo bandhigi doonay sharciyadii la jebiyeyna aan soo bandhigi doonay iyo dhaatooyinkii aan ururinayna sanadka cusub ee muddada 2018 wixii dhacay waxyaabahan qabanay ee aan bulshadeena aan ka wacyigelino wax ka mid ah xeerkan kufsiga ee iminka ku dhex jira ee iminka xoog hadalhayntiisu socoto ugu horeyn markii ugu horeysay ayna uu qabi qoraalka ahaa inaan bulshada uga dignay dhibaatooyinku leeyahay iyo qaladaadadka ku jira aan bulshada u soo bandhignay waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabihii aan qabanay intii aan hoggaanka ururka ku soo jirnay welina wuu sii socdaa intaa iyo in ka badanna insha Allah waan rajaynaynaa in la sii qabto xogayaha cusub ee ururka Sharcimaal Association محمد عمر عبدي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا والحمد لله وأعوذ بك من حال أهل النار. كل يبقى هذا الكي وحب بدنا دونا مهنق يبلنقات. وحنا كانوا نقول مهنق يا أنا جو كبلابي قدوميها قدومية كحيانك حوج هايه هراء iyo dhammaan xubnaha kale ee ka tirsan ururka Sharcimaal Association ururka Sharcimaal Association waxaaynu ku wada jirnay muddo ilaa sanad ah taas oo aynu ku soo wada shaqaynaynay hawlaha ururka oo loo aasaasay taas oo ahayd in la kaalin qabto ama la caawiyo dadka danyarta ah dadka tabaalaysan shaqaalaha rayidka ah iyo dhammaan bulshada kaalin kasta oo ay kaga jirto in loo fududeeyo dhanka sharciga muddadaas waxyaalo badan baa u qabsoomay ururka yoolna uu leeyahay yoolkaa uu leeyahay waxaa ku hogaaminaya oo wadaya hadba cidii hoggaanka u haysa taas oo aan anigu hadda ka ahaan iminka xoghayaha lay magacaabay aan samayn doono barnaamij iyo istiraatiijiyad aan ku hawlgeli doono oo aan kula waafaqi doono guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waxaa sidoo kale mahadnaq gaara siinaya walaalkay xoghayihii hore Cigaal Yuusuf Haybe oo soo qabtay shaqooyin badan hawlkarnimana muujiyay si hagar la'aanana ugu guntaday inuu dhammaystiro waajibaadkii loo xil saaray waxaa sidoo kale aan halkan maanta uga mahad celinayaa saddexda guddoomiye ee waaxyaha loo magacaabay ee guddoomiyuhu maalintii dhaweyd u magacaabay iyo xubnaha kale ee la shaqaynayaba anigoo soo gaabinaya hadalkayga waxa aan u gudan doonaa haddii alla ka dhigo si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka ururka waxa aan keeni doonaa oo aan hortiina soo bandhigi doonaa qaabka aan u hawlgeli doono iyo marxaladaha by step looga gudbi doono muddadaas uga hadhay hoggaanka ee sanadka ah haddii alla ka dhigo insha Allah ugu dambeyntii waxa aan dhammaantiin idinka mahad celinayaa waajibka iyo xilka aad saarteen oo aan leeyahay waa xil iyo mas'uuliyad aad u culus xil iyo mas'uuliyadaasna cidda ka soo bixi kartaa waa inuu Ilaahay ku asturay oo kaliya allana ha iga dhigo qof xilka si daacadnimo ah hawlkarnimo ah u guta haddii alla ka dhigo allana waxaan ka baryayaa sidaa aad ii garateen inaan anna hawsheeda uga soo bixi doono insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم إلهي بمحل عاو مناسبة قيمها بدن سوق كاني مهد جودر إلهي بقولنا الحمد لله رب العالمين مركو بعد مر لبعض مر صدحات مر كلو حنم حد علينا
gudoomiyaha ururka sharci maal mudane mukhtaar yuusuf maxamed oo runtii qayb lixaad ka qaatay ururka horumarintiisa xubnaha oo dhan soo dhan 16 xubnood oo mahad celinaya ana afkooda ku hadlaya magaca ku hadlaya muxuu qaybta lacagaha waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caaw halkan soo istaago ama balay marti qaado leeguura caaw qaybta halkan ka tago waan markii hore la sheegin haddana aad baan ugu faraxsanahay inaan soo hor istaago xubnaha igaadka oo qiimaha badnaa hablo iyo inamaba sida wacan hagar la'aanta markasta dee nolosha shaqeysana aad iyo aad baa ugu mahadsantiin inta baan ku soo koobaya waayo waqtigu aad iyo aad ugu yar mukhtaar iyo xubnaha kale ururka dhamaantood waxaan aad ugu faraxsanahay urur runtii aan la soo bilaabay أنا مالك هو الرئيس مرحلة دمرية عاونا الحمد لله هل كان مريا مركا حوجي هراء عقال طريقا عقال لا أدبنا جماعة علنا هنتي مددي أو حوجي وحيا وقبتي ومركا هو الرئيس أنا ركي أورو صفر ساتية كتر سنة هنتي قف حيل سوق قبتي معموس يا قف كي كلام هنتي سود وينه مركا تسوى مدة الشرع مالك قد وين والرضا كله وين هنتي مكو عالمي يكون محلي قابو طلابو مدن إن هنتي لبقادي حنا دقم على حمداي سوق العادي شغل كتشري مركا وسنساق صبح حمداي سوق العادي ويتري عاو كمبل سرينا تماده مركا سيدي بان انو كويمid ururku sida runtii ka war hayo meel fiican u maraya marka kalena waan idin hambalyeynaya runtii waqti uma helin xafladii qalin jabinta idin hambaliyeeyo intiina qalin jabisay waan hambalyeynaya munaasabada kale waan idin ku hambalyeynaya insha Allah waxaan rajeynayaa guul xogeeyo cusubna oo soo dhaweynayna kii horena waan runtii bogaadina waa maasantii socon doona kuna keenan halkan waxaan uga yeeri doonaa gudoomiye ku-xigeenka ururka sharci maal association Cabdiraxmaan Suleymaan Cilmi si uu kelmad kooban uga jeediyo halkan oo ku salaysan kulankan xil wareejinta xogaayihii hore iyo xogaayaha cusub ku soo dhaweey bismillaahir rahmaanir rahiim in gudoomiyaha ururka sharci maal garyaqaan mukhtaar iyo dhammaan xubnaha ururka sharci maalba runtii aad iyo aad baan u salaamayaa sharaf weyn bay tahay maanta inaynu ka soo qayb galno mar labaad xafladii xil wareejinta xogaayihii guud ee ururka sharci maal iyo xogayaha cusub ee ururka sharci maal runtii laba kalmadood man anigu odhan lahaa xogaayihii horena xogayaha cusub waan soo dhaweynayaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa in xilka ballaaran ee culus ay u garteen xubnaha ururka sharci maal inuu ilaahay ku asturo xogaayihii horena isaga laftarkiisana waan u ducaynayaa si wanaagsan ayuu muddadii uu xilka u hayay si wanaagsan ayuu runtii iyo meel wanaagsan waxa uu ahaa runtii isagana xogaye karti badan oo meel wanaagsan ururka soo gaarsiiyay isagana waxaan u rajaynayaa xilka cusub ee loo magacaabay inuu ka soo bixi doono oo sidii hore uu u shaqeeyay ururka ugu shaqeeyay si ka daran inuu ugu sii shaqeyn doono runtii ujeedada aan ururka u aasaasanay waan ka wada dhageysanay baan u malaynaa waxaan leenahay waa one goal waxaynu doonaynaa inteena garyaqaanada meesha iskugu yimi inaynu hadafkeennii aynu ka midho dhalino runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad xubnaha ururka sharci maal ee ka soo qayb galay xafladan aadka iyo aadka u qiimaha badan leh waan u mahad celinayaa dhammaantood oo ugu horreeya gudoomiyuhu iyo dhammaan xubnaha ururkaba waan u mahad celinayaa waxaan leenahay ballanteenu waa inaan shaqeyno aynaan daalin